كيف وهابون إنه نقول قدوميها يوتيوب ليدا ماليش قف عدك بدن له أيها ونقول دونا قدوميها وحن سبناه وإذنك عدكينا سانك وحن كعد سنايا ومر لو المستعد كعد سنايا إنها كومنتيجا عدك هذا النوسو ريبتي ومهم وعنوية مهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين سلام دمان أصحابتي دقالي قبل كسر جوكتين كسر هذا فيديو عصب channel قد داوني سهلمان واستبران قفك إلا الله أنا قفك ما واستبران لفتي سي جايز كسر هذا مقال كله عصب الله عصبتي سودو سبسكرايب قناة صار كتاب والله عقل أنا أدو حكومة ترى بس أنا واحد وين ويقبتها حتى تيجي بيرتي وان جعلها وان فرحية وان فرحية إن أصحابتي كم نقطة إن سودوات إن جنال كاجي هاي أي تاس عدنتي أي تاي oo wax kasto aan rabno oo markaas aan jeclayso in ay soo gudbiyo aan markaas soo gudbiyo waxay ii tahay farxad dhiirigelin sidoo kale commentiga wuxuu yahay dhiirigelin si markaas ay soo qortiin way ka madcilay intii ugu dambeysay isbuucan ugu soo birto waxay leeyahay thank you so much aad au mastiin thank you so much waa luqad kale laakiin af Soomaaliya ku madcilay waxay leeyahay aad au mastiin sida quruxda badan sharafta karaamada leh ay soo birteen channelka Istibrani guys kusoo dhawaada muuqaal kale oo cusub muuqaalka maanta aan ka hadlayno uu ka duwan yahay rumaantii muuqaaladii hore waa muuqaal la rabo idinka laftigiina inay qayb qaatiin waxa qayb qaadanaya ama raba in maaragtay wax sameeyaan oo loo baahan yahay ka qayb qaata si fiican uga qayb qaata waa idinka laftigiina ma ahan anaka waxaan ku socdaa videogan waa idinka ayaa loo baahan yahay inay qayb qaatiin okay maxaa waaye وأختين بريان دم يوتيوبرد ماليزيا كنول waxay gaareen ilaa 66 qof 66 qof ayaa waxa la go'aansaday in loo sameeyo gudoomiye ama madaxweyne qofkii xukumi lahaa yaani hadii meel guud nool yahay oo dadkii isku shaqo yihiin waxaan jeclaysanay anagoo gudi ah inaan sameeyno gudoomiyahaas oo maamuli doona youtuberada dalka Malaysia gudoomiyaha waxa codeynaya oo dooranaya qof kale ma ah waa idinka laftigiina idinka qofka tiraaheen siiya waa gudoomiyihii uu noqonayaa youtuberada Malaysia 66 qof ayuu maamuli doonaa insha Allah taala qofkaas ayaa wuxuu noqonayaa madax okay marka waxaa la rabaa meeshan waxa yaala 5 qof oo hadda u tartamaya gudoominimada youtuberada Malaysia 5taas qof ayaa la rabaa in uu codeysid idinka qofkee ku haboon inuu noqdo gudoomiyaha youtuberada Malaysia taasi anagu ka taraacayna ayaan waxaan u soo gudbinay ama fariin u soo sameynay idinka dartiin oo idinka la rabo inaan idinka soo gudbisiin qofkii markaas noqon lahaa gudoomiyaha youtuberada ee dalka Malaysia okay waxa loo baahan yahay qofkaas inuu isku keeno youtuberada dhan Malaysia meel kasta ay joogaan yaani Malaysia markay dhahayo ma ahan kaliya inay ku nool yihiin youtuberada magaalada Kuala Lumpur oo ah caasimadda dalka waxay kala nool yihiin meel badan hadii aan leed gobol qaar jira hadii aan leed magaalada Kuala Lumpur meel loo soconayo 15 kilomitir qaar degan yaani minis waxaan ka wadaa qofkaas uu qaban doonaa dhaxgalkii dhalinyaradaas iyo ka warqabkii in laga warqabo oo la isla warqabo oo maaragtay markasta la isku imaado oo markasta la is ogyahay oo markasta qofkaas qof kale uu ka war ogyahay okay marka maxaan u baahanahay 5 qof ee soo socota in uu codeysiin oo idinka aad maaragtay siisiin qofkii mudnaa inuu noqdo ama qofka ugu codka badan leh ayaa wuxuu noqon doonaa gudoomiyaha youtuberada dalka Malaysia ma ahan kaliya in janaalkii kaliya laga daawan doono ama fariinta ka soo baxayso waxay ka soo baxaysaa janaalo aad u badan oo dhalinyarada youtuberada Malaysia ay janaaladooda qaar kamid ah ayaa la soo baahin doonaa insha Allah taala anigana waxaan noqday qofkii ugu horeeyay caawa ee maaragtay la soo wadaaga asxaabta barnaamijkan oo barnaamij aad u qiimo badan runtii wax loo baahan yahay ay tahay wax maaragtay dadka dhan maaragtay ku farxayaan ay tahay maadaama ay yihiin dad aad u badan aad u tiro badan okay shanta qof waa kuwan qofka u horeeya waa adno janal ma u codeyseen ma u codeynin okay adno janal ko waa adno janal labo waa arimaan qof saddexaad waa liicaato qofka afraad waa Yaxya Hantar qofka shanaad yaa waay yuu kala noqon karaa waa Muniir Akha
isagana waa kan. Okay, shantaas qof ayaa laga rabaa idinka inaad u codeysiin qofka qabanaya gudoominimada YouTube-leyda sanadka soo socda. Ministry ilaa sanad soo socda sanad kale soo xiga waxaa qaban doonaa sida camal doorashooyin kale oo markaas qofka lagu dhiibi doono ama lagu magacaabi doono. Marka hadda idinka ayaa commentiga ku soo qori doona qofka maartay qabanaya. wax kale ma codeynayna anagu ma codeynayno anaga dhexdeena ma codeynayno waxa uu codeynaya qof kale ma aan waa idinka waa daawadayaasha dadka daawada ayaa muhiimada la siiyay inay codeeyaan ay markaas codka qofkaas ay meesha keenaan qofkii noqon lahaa habeen dambana dhalinyaro kale oo YouTube-leeya ayaa soo gelin doona insha Allah ta'ala channelkooda arintu si socod doonta ma ahan kaliya mid channelkii kaliya laga daawanayo ma ahan kaliya mid maaragtay ani kaliya u kooban laakiin waa wax sax ah waa arin la isla gaaray waa arin la rabo in YouTube-leyda Malaysia loo codeeyo. Marka aad iyo aad ugu maasantihiin waxaan sugnaaba waa idinka codkiina ayaa ku sameyn doona insha Allah ta'ala gudiga ayaa u fadhiisan doona gudigana warbixin soo saari doona insha Allah ta'ala markaas qofka ugu codka badan leh markaas iyada ah la siin doono. dad ba waxay soo weydiin doonaan maxaa idinka dhexdiina isku codeyn weydeen ma ahan waxaan anagu jeclaysanay maadaama ana YouTube-leyda anagu waxaan jeclaysanay in dadkana daawada ama oo shacabka inay noo soo codeeyaan. Okay, taas ayaan go'aansanay anaga taasna waxa fulinaya waa idinka cid kale ma waa idinka laftigiina taas idinkaas sameynaya. Okay, marka doorashadu waxay soconaysaa isbuucan waxay soconaysaa ilaa isbuucan qof kasta oo janaalka daawado bilxsaanig waxaan ka codsanayaa oo mar labaad mar saddexaad ka codsanaya inaad commentiga codkaaga noogu soo reebtid. waa muhiim wuxuu noo yahay muhiim waxaan ku ogaanaynaa arintan maaragtay ayaan waxaan ku dooranaa gudoominimada waa muhiim codkaaga please waa muhiim ha noqon qof daawada oo markaas ka socda laakiin waxaa noo muhiim ah inaad daawatid videogan markaad daawatid ka bacdiina aad soo qortid fariinta adiga muhiimka annaka noo ah oo aan ku ogaanayno adigana qofka aad u codeys waqtigaas iyada laakiin ha noqon inaad daawatid oo adana ka socotid. Okay, marka qofka la doorto oo isbuucan soo socda la doorto run ahaantii waxaa imaan doonta in la qabto xaflad aad iyo aad u weyn oo markaas lagu caleema saarayo gudoomiyaha YouTube-leyda dalka Malaysia. waxay noqon doontaa meeshii u horeysay run ahaantii meeshii u horeysay ee laga sameeyo gudoomiye YouTuber ah oo aan dhihi karo meesha Soomaaliya ku nool yihiin hadda aragtid Nairobi ma lahan Soomaaliya Muqdisho ma lahan walaakiin waxay noqon doontaa meeshii u horeysay ee laga sameeyay YouTubero isku xiran isjecel isla wadaag wax kasta horumarka dadka ka shaqeeya qof kasta oo markaas cusub oo soo galaya YouTube-ka in gacan laga siiyo waxa u baahan yahay. taasna waxay noqon doontaa chance kale oo meeshan laga helayo. marka insha Allah ta'ala arintaas ayaan wadnaa aniga kaligeena ma wado waxaa jira gudi kale la shaqeynaayo gudigaas waa badan yihiin waa ilaa 6 xubnood waay 6 qof waay 6daas qof ayaa qaabilsan codeyntii hagaajintii kala saaridii iyo wixii dhamaa maaragtay codeynay. markaas ka bacdi markii 6daas qof iyo fiidiyada la soo wado ay dhamaadaan waxaan u sameyn doonaa saa idin sheegnay xaflad oo markaas qofkaas ku guuleysta loo sameyn doono. waxay ka dhici doontaa insha Allah ta'ala hool ku yaal magaalada Kuala Lumpur ee dalkan Malaysia. waana arin la wada sugayo waa farxatin waa wax lagu farxo markii dad mideysan oo isku shaqo oo hal mid ay gudoomiye yeeshaan markaas minis waxa waaye waa la iska warqabaa waa dad iska warqaba oo markaas wada shaqeyn ay ka dhaxayso. gudiga arintan soo maaragtay wadana waxaa la isku afkartay maadaama la wada shaqo oo dad badan ay wada shaqo ka dhaxayso 60 qof iyo 66 qof meelahaas gaaraya oo magaalada ay ku nool yihiin waxaa la go'aansaday in la sameeyo hal qof oo gudoomiye noqdo ka bacdina insha Allah ta'ala isla xafladaas markii lagu calaamay saarayo ayaa waxaan sameyn doonaa gudoomiye ku-xigeenkii. waaw hatta hadda ay socdeen lahaydeen anoo gudiga waa iska qaadanaa gudoomiyada. Okay, insha Allah ta'ala waxaan ka tagay sidaas nabadgelyo kultaba waxaan rajeynayaa qof kasta muuqaalkana arkay inuu soo codeyn doono